Israa'iil waxa ay muujinaysaa danaynta ay doonayso inay si dhaqso ah ku dhamayso dagaalka ay kula jirto Iran sida uu xaqiijiyay sargaal sare oo Israa'iiliya iyo kuwa Carbeed oo la hadlay wargeyska la yiraahdo Wall Street Journal. Talaabadani waxay timid kadib markii Mareykanku uu weerar ku qaaday xarumaha nukleerka Iran iyo weerar kale oo gantaala oo Iraaniyiintu oo culays xoogan ku saareen magaalooyin kamid ah gudaha Israa'iil oo saakadii hore dhacay kaas oo khasaare kala duwan ka geystay inta badan magaalooyinka Israa'iil ay maamusho. Saraakiisha Israa'iil waxay sheegayaan in wajiga militariga ee hadda socda uu marayo heer gabagaba dhankooda ayna filayaan maalmo gudahood ay ku dhameystiraan weerarada ka dhanka bartilmaameedyada Iran. Ujeedada ugu weyn ayay yiraahdeen waa in Iran lagu khasbo miiska wadaxaajoodka inay si rasmi ah uga tanaasusho barnaamijkeeda hubka nukleerka. Isniintii maantana Iran waxa ay qaaday weerarkii 21aad ee gantaalo iyo diyaarado drone oo lagu garaacay Israa'iil kuwaas oo sababay burbur xooggan oo ka dhacay magaalooyin kamid ah kuwa Israa'iil ay gacanta ku hayso. Sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Iran, weeraradaasi waxa loo adeegsaday gantaalo casri ah iyo waliba sidoo kale xeelado khaas ah oo kamid ah inay meesha laga saaro nidaamka difaaca cirka ee Israa'iil. Gantaalka la yiraahdo Khadarheed ayaana maanta ay adeegsatay dhinaca Iran sida ay ku dhawaaqday. Isla maantana ciidamada Iran ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen tobaneeyo diyaarado drone ah oo siday madaxyada hubka isla markaana duqeymo kala duwan ka geysan lahaa gudaha magaalada Tehran ee caasimadda dalka iyo gobolka kale. Warar kale ayaa sheegaya in ciidanka cirka ee Israa'iil ay weerar weyn ayana ku qaadeen xarumo kala duwan oo kamid ah bartamaha ama qalbiga magaalada Tehran ee caasimadda dalka. Goobta la weeraray waxa kamid ah xeryaha ciidanka ilaalada kacaanka ee dalkaas, xarumo amar bixineed oo saraakiisha sare ay kulamo ku lahaayeen xabsiga Evanka la yiraahdo oo kamid ah xabsiyada ugu ciqaabta adag ee ka jira gudaha dalkaas Iran, jaamacadda magaalada Tehran iyo goobo kale oo ay sheegtay Israa'iil inay bartilmaameed u ahaayeen howlgallada maanta ay ku beegsanaysay xarumaha dawladda. Taliska ciidanka Israa'iil ayaa soo saaray qoraal digniina oo lagu qoray afka Bershiyanka la yiraahdo waxaana si rasmi ah loogu sheegay dadka Iran inay ka durkaan dhammaan bartilmaameedyada militari, xarumaha dawladda iyo goobaha lagu farsameeyo hubka oo ay sheegtay Tel Aviv inay yool u yihiin. weerar kale ayaa sidoo kale lagu qaaday xarunta nukleerka ee Leopardo halka qiimeyn laga sameeyay khasaaraha ku dhacay goobahii hore ee kala ahaa Natanz iyo waliba soo kale isfaham. Sirdoonka Israa'iil waxay sheegeen in xarunta nukleerka ee Natanz si buuxda loo burburiyay iyadoo la soo warinayay in 10 xubnood oo ka tirsan ilaalada kacaanku ay halka ku dhinteen. Sargaal sare oo Israa'iiliya ayaa sheegay in Tel Aviv ay xaq u leedahay in mar labaad weerar militari qaado haddii Iran ay dib u bilowdo barnaamijkeeda nukleerka, taas oo loo arkay inay tahay gebi ahaanba mid muujinaysa sida ay Tel Aviv isugu aragto inay tahay xubin firfircoon oo wali howlgal la fulin karta. Iran way diiday war ka yimid dhinaca Israa'iil oo ahaa dagaalka in la joojiyo. mid ka mid ah taliyayaasha sare ee ciidanka ilaalada kacaanka ee dalkaas Iran ayaa sheegay inaan la joogin xilligii dagaalka la joojin lahaa. Fariinta Tel Aviv waxa la mariyay dal kale oo gaarsiiyay Tehran, taas oo loogu jawaabay hadda waa xilligii dagaalka xilligii nabadda maaha, taas oo muujinaysa in ay Iran diyaar u tahay weerar dheeraad ah inay qaadato. Sargaal sare oo u hadlay dhinaca Tehran ayaa sheegay in 2 sano oo soo socota duulaankan uu qaadan karo sida uu CNN-ka u sheegay. Wuxuu sheegay in Tehran diyaar u tahay sidii gebi ahaanba ay isugu filnaan lahayd muddada 2 sano. Iran waa ka jawaabaysaa duqeynta Mareykanka. Taliyaha guud ee ciidamada dalkaas Iran Sarreeye Guuto Cabdiraxiin Musavi ayaa xaqiijiyay in Iran ka jawaabi doonto weerarkii Mareykanku ay ku qaadeen xarumahooda nukleerka. Ilo wargala ayaa u sheegay Reuters in Mareykanku ay ogaateen 48 saac soo wajahan Iran ay doonayso inay weerarto saldhigyada Mareykanka ee mandiqada gobolka Bariga Dhexe ku yaala. Mareykanka ayaa saldhigyadiisa ku yaala gobolka Bariga Dhexe heegan sare geliyay. Muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan dalalka Khaliijka ayaana la faray inay gabaadyo ku dhawaadaan lana socdaan digniinaha ka imaanaya safaaradaha dalalka ay joogaan. Tan waxay ka dhigan tahay in Mareykanku hayo xog dhab oo ah inay Iran go'aansatay inay weerar ku qaado saldhigyada Mareykanka ee gobolka. Aqalka cad ee Mareykanka ayaana ku hanjabay inay qaadi doonaan tallaabo adag oo ka dhana dhinaca Tehran haddii la isku dayo in la weeraro saldhigyadooda. Midaan shaki lahayn waxay tahay inay Tehran hadda qaadatay go'aan dhammaystiran oo ay kaga jawaabayso weeraradii uga yimid dhinaca iyo Mareykanku ay doonayso inay ka jarto saldhigyada Mareykanka ee mandiqada kula yaala. Waana goobaha wadamada Carabtu ay sida weyn u degan yihiin. Fariinta Khomeini waxa ay gaartay Vladimir Putin-ka Moscow. wadahadalo siyaasadeed ayaa ka dhacay aqalka looga taliya dalka Ruushka Kremlin-ka kaas oo dhex maray madaxweynaha dalkaas Vladimir Putin waxaana uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas Iran Abbas Araghchi oo wadahadalo iyo safarro kala duwan ku soo maray Geneva, Oman ilaa iyo Turkiga.
wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay in hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei uu fariin toos ah u gudbiyay Putin uuna kaga codsaday in Ruushku taageero dheeraad ah ay siiyaan dalkiisa wuxuuna muujiyay in Tehran ay doonayso inay Moscow qaadato door lixaad leh oo ay ku garab istaagayso Iran xilligan oo ay la kulmayso weerarada kaga imaanaya xulafada Mareykanka iyo Israel oo si toos ah u doonaysa gebi ahaanba inay burburiyaan Iran. isla jeerka Putin ayaa madasha kaga dhawaaqay bixinta iyo garab istaagga dawladda Iran ee dhankooda kaalmo kasta oo loo baahan yahay mana uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan nooca kaalmo ee ay bixinayaan. dawladda Iran waxay rumaysan tahay in taageerada Moscow ee ilaa hadda la helay aysan ku filnayn marka la eego halista taagan iyo weerarada xoog leh ee uga imaanaya dhinaca Israel. nidaamka difaaca hawada ayana baahida ugu badan hadda u qabtaa dhinaca Tehran marka laga hadlayo kaalmo military maadaama dhinaca dhulka uusan wali dagaal ku ahayn lana fili karin xiliyadan inuu noqdo ama soo gaaraba balse yoolka ugu weyn uu yahay in si dhammaystiran ay ugu baahan tahay Tehran nidaamka difaaca hawada. Iran way ka baxday heshiisyadii nukleerka. Iran iyada oo hore u saxiixday heshiiska xakamaynta hubka nukleerka waxay hadda leedahay xuquuq sharci oo caalami ah oo ah inay hodmiso uraniumta si nabdeed waxayna ku salaysnayd oo kale barnaamij tamareed inay taas u rogto barnaamijka bacriminta nukleerka. gudoomiyaha baarlamaanka Iran Mohammed Baqir al-Khalifi ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in Iran joojisay dhammaan wada shaqayntii ay la lahayd wakaaladda tamarta nukleerka ee caalamiga ee IAEA waxaana uu sheegay in gebi ahaanba tallaabadaas ay qaadatay oo baarlamaanka dalkaas uu maanta si wada jira ugu codeeyay. waxay ka dhigan tahay Tehran inay hadda qaadi karto tallaabo kasta oo dheeraad ah iyadoo aan wax kormeerayaal la socon. madaxa ugu sareeya hay'adda quwadda atomikada caalamiga ayaa codsaday goor sii horeysay isagoo CNN ka la hadlaya oo maanta ah in loo baahan yahay in la ogolaado in korjoogtadu ay tagto gudaha dalka Iran oo shaqadoodii ay qabtaan kormeeraana xarumaha la weeraray. laakiin baarlamaanka Iran taas way diideen gabi ahaanna meesha wayba ka saareen heshiiska u dhaxeeyay Iran iyo caalamka ee la xiriiray arinta xakamaynta hubka nukleerka gaar ahaan bacriminta inay si xoogan ula socdaan. xiritaanka gacanka Hormuz inta waxa dheer xiisadaha siyaasadeed iyo istiraatiijiyada oo sii xoogeysanaya waa meel ka baxsan goobta dagaalka waxa ku ogan. baarlamaanka dalka Iran ayaa xaqiijiyay inuu taageeray qorshe lagu xirayo marin biyoodka Hormuz inkasta oo go'aanka kama dambaysta uu gacanta ku hayo guddiga sare ee amniga qaranka ee dalkaas Iran uu hogaamiyo Ayatollah Ali Khamenei. haddana midda la hubo waxa ay tahay in Tehran ay qaadatay go'aanka xiritaanka. haddii tallaabada la fuliyo waxay carqaladayn doontaa ilaa 30% saliidda dunida laga dhoofiyo. taasi waxay keenaysaa shil dhaqaale oo caalami ah iyo burbur xoog badan. madaxweynaha Mareykanka ayaana wadamada soo saaray saliidda u sheegay in loo baahan yahay in ay si dhow ula socdaan doonistiisa oo aysan ka hor imaan karin. waxaana uu sheegay in sare u kac lagu sameeyo qiimaha shidaalka ama hoos dhac labaduba ay tahay mid Mareykanka oo kaliya ay jaangoynayaan. aqalka cad ayaa sheegay inay taasi ku dhicin dhinaca Iran oo ay tahay ku dhawaaqid dagaal toos oo ka lifi doonta in xaaladdu isku bedesho sida ay haatan tahay. sidaas ka sheegnayna gacanka Hormuz ma aha meel sahlan oo xiridaas ay ka dhalanayso dhacdo iska fudud. dawladda Shiinaha ayaa iyana halkan ku soo biirtay waxaana sheegtay in loo baahan yahay in dagaalka aan la soo gaarsiin marinada caalamiga ee socdaalada. Shiinaha ayaa ka mid ah dalalka ay sida dhow arinta u saameynayso. codsi Mareykanku waxa uu diray Shiinaha. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ahna la taliyaha amniga qaranka ee Trump Mark Rubio ayaa ugu baaqay Shiinuhu inuu saameyn ku yeesho Iran si ay uga baaqsato tallaabadaas. waraysi uu siiyay Fox News waxa uu ku yiri xogayaha arrimaha dibaddu waxaan ku dhiirigelinayaa dawladda Shiinaha ee Beijing inay la xiriiraan Iran oo arinta xiritaanka ay kala hadlaan. haddii ay xiraan marin biyoodka waxay noqon doontaa isdil dhaqaale oo dhammaystiran iyo isqarxin waxayna si aad u dhaawacaysaa dhaqaalaha dalal badan xitaa ka badan kan Mareykanka. haddii Iran ay xirto Hormuz waxaan haysanaa jawaab aad u burburin doonta ayuu raaciyay la taliyaha amniga qaranka ahna xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Shiinaha oo ah iibiyaha ugu weyn ee shidaalka Iran hadda ka iibsada waxay si weyn u saameyn doonaan haddii Hormuz la xiro. falanqeeyaha tamarta Elefan Darhere ayaa u sheegay sidaas BBC-da. Iran kuma faa'iideysanayso xiritaanka Hormuz ee waxay halis ugu jirtaa inay colaad kala dhex abuurto dalalka kale ee gacanka Carbeed. sidoo kalena waxay caragelinaysaa macaamiisheeda oo ugu muhiimsan yahay Shiinuhu. ugu dambeyntii Israa'iil waxay doonaysaa in dagaalka Iran si degdeg ah loo soo afjaro iyadoo isku dayaysa in mar kale Iran ay ku riixdo xagga wada hadalka. laakiin Tehran waxay muujisay awood military iyo adkaysi waxaana marar badan si toos ah uga jawaabtay weerarada Israa'iil. isla jeerkaana qorshaha Iran ee lagu xirayo Hormuzku waxa uu noqon karaa barta ugu khatarta badan ee lagu kala adkaan karo halkaas oo dagaal siyaasadeedku u dhaafayo xadka militariga oo u tallaabayo dhaqaalaha dunida oo si weyn dagaalku u naafayn doono. taas oo ay Tehran aaminsan tahay inay tahay waxa ugu ballaaran ee kula gorgortami karto
xulafada ay xilligan is hayaan iyo saaxiibadeeda kala duwan ee gobolka.